soo dhawow daawade waxaan kaa codsanayaa video inaan like saarto si aynu dad badan u gaadhno mahadsanid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markaad doonaysid inaad ganacsi bilowdo, waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka la doonayo inuu ka fikiro waxaa ka mid ah inaad u samayso ganacsigaaga qorshe fog iyo qorshe dhow. Qorshe wuxuu noqon karaa inaad ka fikirto waxyaabaha aad doonaysid inaad iibiso, qarashka kaa galaya businesskaaga information ku saabsan iyo sida u horumarin lahayd businesskaaga. Waxyaabaha ugu khatarsan ee dadka ay ku dhacaan waxaa ka mid ah inaad businesskaaga u sameeydo business plan. Haddaba si aad business plan u samayso waxaa u baahan tahay inaad garanayso sida loo sameeyo business planka. Laakiin waxaan idin hayaa maanta qaab fudud oo aad business plan u samaysan karto adigoona waqti badan gelin ama aqoon badan aadan u baahnayn inaad ka barato businesska. Website kala yiraahdo bplans.com ama businessplans.com waa website aad iyo aad u wanaagsan markaad doonaysid inaad business plan samaysato. Waxyaabaha website-kan cajiibka ku yahay waxaa ka mid ah waxaa ku jira in ka badan 200 oo qorshe business oo hore loo diyaariyay. Taas waxay kaa caawinaysaa inaad hesho businesskaaga business u eg oo hore loo diyaariyay. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad ka badasho magaca iyo informationka businesska. Marka bal aan imika baarno business plan fudud. Marka hore waxaad tagi doontaa meesha ku qoran tahay sample plans. halkaas markaa furto waxaa kuu soo bixi doona page cusub. Page-ka waxaa ku qoran in 500 oo business plan in ka badan in laga helayo website-kan. Haddaba si aan u download garaysan waxaan tijaabin doonaa business yar oo simple ah. Waxaan doonaynaa inaan sameyno shirkad samaysa softwareska oo la yiraahdo a software development business. So marka u horeysa waxaan sameyn doonaa inaan raadino software planning business ku saabsan. Halkaan baan ku qori doonaa waxaa ii qortaa software. intaan markaan ku search gareeyo wuxuu ii soo saari doonaa waxyaabaha ku saabsan software development business plan. Okay, kan wuxuu yiri halkaas software sales business plan template, inventory control business plan software, computer software business plan, software sales business plan. So intaan oo dhan way kala duwan yihiin. Ka xitaa waa technology business plan wuxuu koobayaa waxyaabo badan oo ku saabsan teknolojiyadda. Marka kan aynu dooran doonaa inaga computer sales business plan. Okay, computer software business plan markaa soo furto waxyaabaha ugu wanaagsan aan ka helo waxaa ka mid ah ku kala qaybinaya. Markaad doonaysid inaad business plan samaysid, qaybta hore waxaa la yiraahdaa executive summary oo lagu sharaxayo businesska informationkiisa iyo page-kan u horeeya qofka markuu akhriyo waxaa la doonayaa inuu information buuxda ka helo businesskaaga. So haddii aad doonaysid businesskaaga inaad u dirto dad doonaya inay maalgashadaan ama shirkado bixinaya maalgelin ama qof hadduu doonayo inuu share kula galo waa inuu page-kan u horeeya markuu akhriyo wax kasta businesskaaga ku saabsan uu fahmo. Marka intaan waxaa la dhahaa business executive summary waxaa ku jira missionkii iyo waxyaabaha u baahan tahay si aad u guulaysato iyo objectiveskaaga. Marka hadda qaybtan kale waxaa la yiraahdaa company summary oo xogta shirkadda ku saabsan, dadka iskala shirkadda, lacagaha galayo. Qayb kale oo waxaa muhiim ah oo halkaan financial plan la dhaho way soo galayaan qarashaadka shirkadda ku bilaabayso. So hadda waxaa ku qoran maanayso meelahan lacag aad iyo aad u badan waxaa laga lacagaas in adigu ku bilaabi karin. hadda wuxuu ku dhahayaa $12,000 baad break even ku noqonaysaa. So halkan haddaa eegto bilaha u hore lacagaha la sameynayo kuu sheegaya waa qorshe fogkan ilaa 5 sano gaaraya I think. sidoo kale halkan wuxuu ku sharaxayaa qarashaadka ku baxaya shaqaalaha. waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah marka business plan bilaabaysid inaad horta marka hore qorsheysato waxyaabaha fixed costs ka soo noqonaya sida kirada iyo shaqaalaha mushaharkooda iyo waxa dhan si qorato. marka tan waxaan u deyn doonaa dadka businesska accounting waxa bartay, laakiin adigu aad oo isticmaali kartaa kaliya waxa u baahan tahay documentiga inaad ku furto Word kadibna aad gelgashato waxyaabaha u baahan tahay adiga aad awoodi karto iyo investmentiga intuu ku noqonayo. si aad u download garaysato marka waxaad samayn kartaa kaliya hadda haddii aan isku dayo waxaa ina geysaa executive summary. haddii aan isku dayo inaan copyeeyo kan oo aan right click siiyo wuxuu dhahayaa don't bother copy with and paste. ha isku wareerin wax la copyeeyo kaliya download uun dheh. marka hadda download for free taabto wuxuu keenayaa halkan kadib wuxuu dhahayaa informationkaaga halkan ku qor. intaan baan buuxinayaa businesskayga waa just idea ama waxaa tiraa starting up now, waxaa tiraa no deka kan waxaa tiraa business consultant. so download baad taabanaysaa. marka in yar sugto kadib downloadkaaga xaggan ugu bilaabanaya. so this hadda waxaa weeye intii hadda akhrinayno Word weeye oo document Word ah. hadda Word ku furto dhammaan waxyaabihii ku qornaa meesha waa bedeli kartaa, informationkan dhan waa edit garay kartaa. so inaad business plan samaysatana waa very important si businesskaaga u noqdo business horumar sameeya.
waxyaabo badan oo mustaqbalka imaan karana aad kasii fikirto. Marka I hope na ka faa'iidaysto videoga. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.